السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المقال كحكيتنا aqoonyahan kii la oran jiray Nicholas Joseph Cognet oo ahaa aqoonyahan dhashay waddanka Faransiiska 1755 u dhashay waxaa u dhintay 1840 waxaa ku dhashay gobolka Lorraine ee waddanka Faransiiska waxaa ku biiray kulliyadda militariga 1765 isagoo ka gaaray darajada captain. sidoo kale waxa uu ahaa aqoonyahankii koowaad ee ka tirsan ciidamada waddanka Faransiiska ee soo saaray gaari isagoo uu soo saaray ciidankiisa waddanka Faransiiska uu ka tirsanaa si ay wax ugu qabsadaan gaarigan steamka ku shaqeynaya ama uumiga ku shaqeynaya. waxa uu dhintay 1840 waxaana uu darajada ka gaaray engineering mechanical engineering. sidoo kale waxa uu ka tagay 2 carruur ah oo uu dhalay intuu ifka joogay. waxaan ahaa aqoonyahankii koowaad ee soo saaray gaariga steamka ku shaqeynaya ama uumiga ama guud ahaanba la odhan karo waa aqoonyahankii koowaad ee soo saaray guud ahaan baabuurta. waayo waxa uu lahaa fikradda ah in uu gaarigu ku shaqeyn karo steam ama uumi isagoo gaarigaas haddii aynu nimaadno qaabka uu shaqeynaya gaarigaasi xagga dambe gaariga waxa ka saarnaa girgira iyo digsi waxaynu odhan karno. girgiraha iyo digsida maanta maaha laakiin labadan waxaa laba isku samaysan isagoo girgiraha xagga hoose qaab moofada oo kala inta loo geliyo dhuxul. sidoo kale markii ay biyuhu aad u karkaraan steamka ama uumiga ay sameeyaan loo bedelay tamar socod. tusaale ahaan haddii aan soo qaadano killigeena maanta aynu shaah ku karsanno haddii aad biyuhu u karkaraan wuxuu sameeyaa inuu furka soo tuuro. haddaba awoodda furka soo tuuraysa oo ah awoodda steamka ku jirta ama tamarta steamka ama uumiga ku kaydsan biyuhu marka ay evaporation ku dhacaya ama ay uumi baxayaan. tamartaasi ayaa looga faa'iidaystay tamar socod iyadoo loo diiday biyuhu in ay meelnaba ka neefsadaan. sidoo kale tamartaas ka imanaysa steamka ama uumiga loo bedelay tamar socod. daawadayaal muuqaalka halkan ka muuqda waxa weeye modelka loo yaqaano Joseph Cognet model oo ahaa gaarigii ugu horreeyay steam ku shaqeeya ee la soo saaray adduunka. fadlan daawada haddii uu ku qanciyay muuqaalkani fadlan like saar. sidoo kale haddii aanu subscribe ku ahayn channelku subscribe gambaleelkana furo si aad ula socoto